السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد إله با مهد له إلهي بينو مهد نغينا ليبيا داف وحي أين هالله إلهي بي حقي سكسرناتي سجانين السيد. انت كبعدي waxaan rabnaa halkan inaan maanta warbixin kooban ku qabanno oo aanu kaga hadlayno sidii wax u dhaceen ilaa shalayto. Shalay waxa dhacay sidaad ogtihiin dagaal baahsan baa dhacay oo maamulka Muuse Biixi ka taliya gobolada galbeedka uu ku talagalay inuu lascaanood iyo dadkeedaba ku soo afjaro. Ilaahay xamdigii way guul daraysteen damacoodiina waa u suurtoobi waayay. waxaa dhacay khasaare fara badan oo naf iyo maalba leh oo rag iyo dumarba ku dhinteen dhalinyaro iyo waayeelba dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaadhay. waxaa dhimatay tiro fara badan, waxaa dhaawacantay dad mid fara badan oo rayida u badan rayid ayna ku jiraan bulshada noocyadeeda kala duwan. waxaa dhacday duqeyn fara badan oo magaalada inteeda badnayd u geysatay khasaare ka ballaaran kuwii maalmihii hore dhacay. maanta ilaahay xamdigiis xabadu way yarayd laakiin wali waxay joogaan koonayaashii magaalada meelo ka baxsan oo xiriyahoodii shalay lagala wareegay oo dhammaan meel kasta oo xiriyahoodii magaalada ku xeeraa iyo dhufaysyadii laga saaray. dabadeedna waxay u baxeen buuraha magaalada ka shisheeya kuwaasay saakana wax ka soo tuurtuurayaan. khasaaro weyn oo dhacay ma jiro ilaa dhowr qof oo dhaawaca unbaa ilaa hadeer la keenay. khasaarihii dhacayna intaasuu ahaa maanta iyo shalay. waxaan rabnaa halkan inaan uga soo jeediyo bulshada SSC wacyigelin gaaban. ilaahay fadligiis waad guulaysateen, tacabkiinniina ilaahay ma khasaarin. waxaan rabnaa inaad marka ugu horeysa ilaalisaan wadajirka iyo isxaq dhowrka iyo ixtiraamka inaad ilaalisaan baa loo baahan yahay. tan xigta waxaa la rabaa inaydin tafaraaruq aydin gelin oo guul intaad isa siisaan aydin iska seexseexan. inagama bixin ciidankii xaqdarrada inoogu soo duulay inagu qabsaday, inagama bixina weli waa ina dul joogaa. wax alla wuxuu doonuuna samayn karaa, kuna talagala taas. waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro maamulka Hargeysa ee Muuse Biixi. wadaado waxaad fashaba fashaya buu yiri waa infaatakum. Muuse wixii aad doonaysay waad heshay, ummadana waad u geysatay dhibaato intii aad geysan kartay waad geysatay. una malayn maayo inaad darajo ku helaysid. ta maanta aad haysatid mid ka badan kuma helaysid. taad maanta haysatana dhiiggii ummadda baad ku heshay aad hore u gashay adiga iyo tiimkaaga kula shaqeeyaaba. tan maanta wax darajo ay kuu kordhinaysaa ma jirto. waxay kuu kordhinaysaa ma jirto. kaliya waxay kuu kordhinaysaa if iyo aakhiraba seeg, magac iyo muug la'aan, iyo inaad noqotid tuka cambaar leh adduunka meeshii aad ka tagtidna aad noqonaysid dembiile adiga iyo in kaloo badan oo kugula jirta maamulkaaga ku talagalataa kuna biyo cabba. ummadda dhiiggeedii hadur noqon maayo lana iska xooli maayo. diiwaan buu ku jiraa. dhinac kasta ha ka yimaado ama adigu soo dir ama kuwani ha difaacanayeen deegaankooda. ummadda adaa dilay, adaana lagu haystaa, aakhirana adaa lagaala xisaabtamaya. ifkana xisaabteedii waa kula sugaynaa maalin maalmaha ka mid ah baana maxkamadaha adduunka iyo meelaha xaqsoorka lagu soo taagi doonaa. deegaamada deriska waxaan leenahay waa nabad. awalba dadkeena deegaanka ah oo ehelka ah isku noolka ah caws iyo cashin wadaagta ah awalba isma hayn. waxaanu isaynay maamulka Muuse. maamulkii Muusena waa ka guulaysanay, inta dambena waa kaga guulaysan doonaa. inagu waxaanu nahay sideenii hala ilaaliyo nabadgelyada, ehelnimada, wadajirka, wada noolaanshaha iyo in wax walba aynu ogaano inaynu nahay dad aan marna meel ku kala tegi karin. waxaan rabaa inaan halkan fariin yar oo kale gaaban uga diro bisha cas. bisha cas waxaan rabaa inaan halkan uga diro meydad fara badan waa nimankii xeryihii ay ka baxeen ay kaga tageen. dhulkii bay daadsan yihiin. waxaan rabnaa inay soo ururiyo. qaarna waxaa la keenay cusbitaalka, tira hadeer 10 ku dhowna cusbitaalka la keenay. qaarna weli meeshii bay yaaleen. bisha cas waxaan rabnaa inay meydadkaas soo ururiso oo ay aasto. intii hore aanu aasnayna ilaahay ha u naxariistaanu leenahay. waa la soo khalday maamul keligiis talis ah
baa soo khalday marka ilaahay waxaan uga baryanaa iyaga iyo intii kale oo dhimatay janno iyo raxmo bisha casna waxaa leenahay hawsha weynay si degdeg ah ay uga hawlgashaa oo meydadka loo aasaa